لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وكتاب يهي زكاة هو هاي حولها لبحنايو وإلهي سبحانه وتعالى dadka uu ku waajibiyay oo xoolaha dhaxdooda ka laazimayo marka zakaa luqada waxa loo yiraahdaa an-namaa wa at-tathhir waxaana loo jeedaa bimacna ziyada wa tahara kurid iyo baraka iyo daahir noqosho loo wada xagga luqada sharcigana waxa waaye waa xaq ka waajibaya xoolaha oo khaas oo isla yaqaano xoolaha marka uu ka waajibayana waxa kooka bahiimatul an'aam wal kharij min al ard dhulku waxyaalaha ka soo baxo thimaartii xubuubta wan naqadan lacagaha wa uruud tijaara waxyaalaha soo idil iyo marka zakadana ay ka laazimtaa waxaana iskale li daa'ifatun makhsuusa dad khaas ah oo la yaqaano يا زكاة لسيا أو حق له وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كأوكت المامي في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى سديد سنفي أيت المامتي تتكاس يا محو هاي إسكاله صدقات يا زكاة للشيء جايو لما أنت وضنا وحلو شرطياه waxa la yiraahdo tamaamul hawl sanad inuu ka soo wareego thimaarta mooyaane inta kale taa ayaa marka iyada loo shardinaya shuruudaas ay leeyihiin zakada waxay kamid tahay arkaanta islaamka waa ruknigii saddexaad oo islaamka waxay ku sugnaatay fardiyadeeda kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaas saxiixa ah intaba sidaas ay tusinayaan waajibnimadeeda marka muhim yay ku waajibaysaa zakada yaa laga rabaa inuu bixiyo qofka ay ku waajibayso zakada inuu bixiyo qof islaam inuu yahay muslim qof kaafir zakada laga ma rabo walow shariicada furuucdeeda lagu la hadlo laakiin se laga ma rabo qof gaal ah zakaa laguma laho midda labaad waxaa shardi labaad ah xoolaha inay nisaab gaaraan oo waqtigii zakada la bixinayay nisaab intii laga bixinayay inay gaaraan sidaas oo kale shardiga saddexaad wuxuu yahay inuu xawlkii uu soo wareego sanadka waxa dhulka ka soo bixin mooyaan marka waxaasna waxay kamid tahay ku tusinaysaa maxaasinta islaamka sidiisa banaan musaawaad iyo dadka ay isla siman yihiin iyo taraaxum iyo tacaaduf iyo tacaawun iyo ku salaysan yahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolahaas la bixinayo wuxuu oga dhigay dahaara saaxiibka oo macnaa quranka iyo bukhliga iyo tilmaamta xun looga dahiraayo khalqiga oo la simaayo dadkan aqniyada u gargaarayeen walaalahooda fuqarada ah waxa soo idil iyo muxuu ahaay ku jiraaw marka dadka zakada aan bixinaynin quraanka iyo sunnada waa lagu caayay dad fiican ma aha ilaahayna wuu ka digay zakada in la reebo la bixin waayo cadaab daran iyo hoola xun way ka dhalanayaan u dambaysa ilaahay quraanka markuu ka hadlayo wuxuu yiri wala yaxsabanna alladheena yabkhaluna bima aataahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يين أملين كوا حولها إلهي أسيي فضلك آن بحنين أو ريبانايين خير إن إرنتها أطهي بل الشر بي أطهي وأنا القورة اللو قلين دونا وحي أي لبا خيلين مالنتي قيامة صحيح البخاري وحاكو السغن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويرادي من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يضوقه يوم القيامة ثم يقول
ana maaluk ana kanzuk xoolihii uu bixin waayey zakada uu ka bixin waayey waxaa loogu soo miisaalayaa muxuu ahaay xalaq ama mas muxuu ahaay aada u weyn oo timo aan lahayn sunti uu qabo tinta ay ka daadisay markaasuu afka uu ridayaa uu ku duubmayaa marka ayaa wuxuu leeyahay xoolahaadi baan nahay keedkii aad keedaynaysay baan nahay saas buu u oranayaa marka markaa zakada goodigaas aragna waa ku soo arooray ahmiyadaasna muxuu ahaaye way leedahay الحديث السادس والستون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أضاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أضاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أضاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حديثك وحال قوري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه وحوير النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحود ديري معاذ بن جبل أيا وحود ديري يمن وحونا كنا يمركوا ديري إنك ستأتي وحال أديك أتجي دونتا قوما أهل كتاب دad kitaab ilaahay uu ku soo dejiyo kitaabaha hore haystayna aqoon diinta u leh ayaad u tegi doontaa baa lagu yiri fa idaa ji'tahum markaad u tagto fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah inay qiraan alla mooyaan alla kale xaq lagu caabudo inuusan jiro ilaah keligiis uu yahay cibaadadana asaga uu leeyahay muxammadna rasuul ilaahi subxaanahu wa tacaala uu soo diray oo risaalada markaa uu ku fadilay inuu yahay waa inaad u sheegto waa qodobka koobaad oo qofka marka u hore loo sheegayo arrintaa markaa hadduu aqbalo oo arrintaa iyada uu kugu soo adeeco fainhum adaacuu laka bidalik arrinkaas hadday kugu hadal maqlaan oy kugu yeelaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha qad farada calayhim ilaahay inuu ku farad yeele 5 salawaatin salaado 5 fii kulli yawmin wa leyla habeenii dharaar isku jirkooda in laga rabo 5 salaadood taa haddana waa qodobka labaad oo loo dhiibaayo fa innahum adaacuu laka bidalik arrinka hadday kugu hadal yeelaan ay kugu maqlaan ay kugu soo raacaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim sadaqa iyo zaka laga qaadaayo dadkooda qaniga ah oo faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda fa inhum adaacuu laka bidalik arrinkaas hadday kugu adeecaan ay kugu hadal yeelaan fa iyaaka adiga iyo waxaan kuu kala digayaa waa ficilku taxdiirkii way wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kiisa karaamaysan inaad ka qaaddo iska jir way xoolaha inaad ka qaaddo nafkan macnaha xoolaha u fadli badan oo xoolaha aan ka dhex muuqto oo xoolaha kuwooda macnaha fadliga badan ama isha ay qabanayso ama ka dhaqaaqayiinba xoolaha bartoodaba kaa iska ilaali baa lagu yidhaahda wattaqi dacwata almadluum waxaad iska ilaalisaa nin laga gardaran yahay habaarkiisa ilaahay yuusan kuu baryina iska ilaali oo naf aan ka laazimin oon waajib ku ahayn dad xoolahii dhexmarto hadaad ka qaado waa nin la dulmiyo qofkaa markaa haddii nin la dulmiyana uu ku habaarana fa innahu laysa baynahaa dacwadaas iyo dacwatulmadluumkaas wa bayna allaahi xijaab ilaahay wax kala teedaayo ma jiro ducadiisa toosaa loo ajiibayaa qof laga gardaran yahay yuusan ku habaarin buu yidhi marka xadiidkaas waa xadiid cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu salaam ayaa wuxuu yihi mucaad ibnu jabal
markuu yaman u diray yaman uu diray war mucaadow waxaad u tagi doontaa qole reer ahli kitaabeed ah markaad u tagto wixii ugu horreed ugu yeeri ha ahaado shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamad rasuulullah diinteena iyo dacwadeedana xaggaasaa laga bilaabaa waxaa laga bilaabay tawxiid iyo caqiida iyo mabaadi'da qofka uu aaminsan yahay holaha caqiidada ku tacalluqo holahaas ayaa laga hadlayaa holaha markuu ka soo dhismo diinta waxay kala leedahay usuul iyo furuuce usuusha waa middaas qur-aanka badankiisana middaasuu ka hadlaa ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo wada dirayna dhammaan macnaa waxay ka midaysnaayeen mabaadidii caqaa'idka ah way ka midaysnaayeen waxyaalahay ku kala tagsanaayeen wuxuu ahaa furuuc shareeca marka waa la isku khilaafsanaa waxaa labaad ood ugu yeerayso wuxuu yahay arrinta hadday kugu hadal yeelaanna salaadaha shanta inay tukadaan oo maalin habeen isku jir 5 salaadood in la tukanaayo hadday kugu hadal yeelaan waxaad u sheegaysaa ilaahay inuu zaka ku faral yeelay zakadaas oo welina laga qaadaayo dadkooda qaniga ah laguna celinaayo la siinaayo dadka fuqarada ah zakada waxaa la siiyaa dad fuqara ah dad qani ah macnaha muxuu ahaay shuqulku ma laha zakada xoolaha ay ka bixin waan soo sheegnay nisaab gooni oo la bixinaayo muxuu ahaay qadar laga bixinayo xoolahana waa jirta dad la siinaayana waa jirta marka wax iska fakisan oo xoolahan inta aad rabto aad ka bixini sanadka aad rabtona ka bixini sanadka rabtona iska daayini ama ma ahayn intii aad marka ka go'i kartoona inta ma una iga go'i kartaaba si aad khiyaar aad iska laado kale inta ma ayaga bixi karto iska tiraado cindi marka muxuu ahaay adi aad doontana iska siini oo cid ku xadidan ba ayni jirinba quraan iyo sunnada gadaal oo fiirinayni ninkii ay kula noqoto iska siini taa marka iyada zaka ma zakada sharciga shuruuday leedahay xoolaha la bixinay qadar go'an oo sharcigu sheegay dadka la siinayo waa 8 nooc ama jamaaca lagu siiyo ama furaada kala loo siiyo ama asnaaftooda lawada gaarsiiyo ama hal sinfiya la siiyo nooc ay ahaataba wax iska furan ma aha hadara kadib waxaa loo soo noqtay ninkii muxuu ahaa zakada qaadayay waxaa lagu yiraahday waxaa iska ilaalisaa inaad xoolaha madax dhacooda war xoolaha dadka ha dhicin madax dhac iska ilaali baa lagu yiri karaa'imu amwaal markaa waxaa loo wadaa hashi la maalayba ma nafkii lagu cadaysanay kii gaadiidkii lagu guuray kii maxanka ahaa oo muxuu ahaay laga rabay in la qasho hilib loo ama meel Allah markuu wuxuu barbax la gaaro la gato oo lacag laga helo kii qoorka ahaa waxa isku di markaa madax dhac xoolahay noqonaysa waxa zaka loo qaado lama rabo wattaqi da'wat al-madlum waxa iska ilaalinaysa nin la dulmiyo dacwadiisa fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab alla baryadaas iyada alla la baryaayo ilaahay hijab uma dhaxeeyo kala reebaayo qofka asaga dacwadiisa ilaahay u tagaysa waana la aqbalaya waana muxuu ahaaye abaarka waa kugu dhacaya xadiidka markaa axkaamta laga qaadanayo waxay tahay koow waxaa loo sheegay mucaad inuu u tagi doono qole ahlu kitaaba u tagitaankooda maxay macnaha ku fadhidaa maxay kuwa kale kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin qole jaahiliin waxba ka saynin ma aha waa qole mutacallimiin nin mutacallime haddaad isqabataan oo masaa'il isku qabataan ama wax inaad ka dhaadhiciso aad rabto sidii ninka caamayga intaad wax u sheegto madaxa intuu ku gundhiyo haye wixii aad dhahdo amaajir un ma aha inta kale xmaartay waxa waaye kaaga maharaayo waxa laga yaabaa xujaj badan inuu la imaado baraahiin badan inuu la soo fadhiisto dood inuu la soo fadhiisto oo xujajkiisii iyo baraahiintii uu la imaado inaad ka dhaawac kici waaso marka yani waxa waaye inaad nin hub leh oo hub meesh la tagay inaad noqoto way cilmigii iyo aqoontii ninka aqoonta leh aad muxuu ahaay xujajkii uu keenay aad kaga hortagi lahayd ko muqaamo weyn lahayd inaad diyaarsato taa iyada marka la rabo waa midaas midda labaad waa inuu diyaar garoobo acdaadaas
iyo shubahaadkii baadilada ay keenayeen wuxuu ku radin lahaa. xadiid waxaa kaloo laga qaadanaya tacallum wa tacliim xusnu dacwa ila allahi tacaala, welina dadkana si xikmada loogu yeero, cilmiga barashadiisa, tacliimta baridiisa si wanaagsan, si xikmad ku jirto. haddana sidaa ay tahay iskama furna. haddana midda labaad afraad waxay tahay alaham falaham, cilmiga waa kala horee, caqiidada ugu horeysa, salaadaa ku xigtaa, zakadaa ku xigaa, soomki xajki, saasuu isku daba yaallaa. siduu u kala horeeyo u kala muhiimsan yahay in loo kala hor ogaado way. haddana mideeda shanaad aasaaska diinta usuusha waa tawxiidka. tawxiid wax kasta waa tawxiid. haddii macno tawxiidka uu kaa khariban yahay, wax kasta aad ku dadaashana waxba macno ma leh. tawxiidka hadduu kuu saxan yahayna, waxa kale uu kaa khaldan yahayna, inta badan rajahaadii waa fiican yahay. rajahaadii waa fiican yahay. salaadaha shanta eena way imaanayaan ayagoo lagu tilmaamayo camuudu diin, diinta tiirkeedu way noo imaan doontaa. zakada marka waa darajada saddexaad. zakadana soomkii iyo xajkiina way ka sii dambeeyaan. waxaana la yidhi kama tegaysid mid ilaa lagugu adeeco. markii middaa in la aqbalay aada ogaato kadib aad qodobka kale u gudbi. laakiin midka hore oo xujaj fara badan ay ka furan yihiin iyo dood ay ka socoto, kaa kale uma gudbaysid baa la yidhi. taas asagana loo sheegay. waxaa kaloo zakada lagu tilmaamay dad fuqara inay leeyihiin oo qani uusan waxba ku lahayn. ninaad ku walaashanaysa adana beriha ku siiyo, waxaas wax loo baahan yaho ma aha. waxaas wax loo baahan yaho ma aha. qofka zakada aruurinaayo, shaqadaas xirfadaas hayo, iyadana inuu iska ilaaliyo muxuu ah dulmiga. hadda maba jirtaan u malaynaa ninkaas asaga ma waxay uu bixinayna bixinayaa, ciduu rabana uu siisanayaa, cid wax isweydiin kartona ma jiro. nidaamba hadda ma jiroba, nidaamba ma jiro. salaadaha shanta ee qofkii hadduu ku gaabsadona marka way ku filan tahay. waxaana kaloo xadiisku daliil u yahay witirka inuusan waajib ahayn. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inay bannaan tahay zakada hal sinfi in la siiyo iidana, oo 8 sinfiyood mid qeybto in la wada siiyo way bannaan tahay. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fuqarada la sheegayana waa fuqarada meesha degan. culimada qaarna waxay yidhahdeen meel kale looma rari karo. marka waxaynay dhahayn haddii macnaha waxaa waaye qaarkoodana si imaam axmed soo guurinaayo, muxuu ahaaye haddii baahi imaato, baahi ka daran meesha iyada haddaa imaato meel kale markaa iyada waa loo rari karaa. alxadiiث السابع والستون xadiidkii 67 bacd المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث كاس وحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحير ليس فيما دون 5 أواق 5 أواقات دون 5 أواق 5 أواقات wax ka sokay sadaqa laguma laha. awaaqan la sheegayaa mufradkeena waa awqiya wey. awqiyadana waa wax u dhigmo 40 dirham oo lacagta fidada ee waay. marka oo maxaa waaye 5 ee markaa awaaqtaas oo markaas 40kaas oo wuxuu waaye 5 lagu dhufto wey. 5 lagu dhufto intaas markaa wax ka soke sadaqa laguma laha buu yidhi. 5 awaaqood wax ka soke sadaqa laguma laha. walaa fiimaa duuna 5 dowdin 5 muxuu ahaaye halaad wax ka yarna sadaqa laguma laha. dowdka markaa 3 laga bilaabo ilaa 10 dowd la dhahaa. markaa 5 dowd wax ka yarna sadaqa laguma laha buu yidhi. 5 halaad wax ka yar 4 iyo 3 halaad
sadaqa laga bixinayo zakaa lagu leeyahay oo waajib ah iidana ma jirto shantiina naf ayaa laga bixiyaa tobankiina markaa laba neef ayaa laga bixinayaa sidaas ay ku soconaysaa markii dambena walaa fii maa duuna 5 awsuqin 5 wasqi wax ka yarna sadaqa lagu malaa waa miraha iyo timaarta iyo xubuubta 5 wasqi halkii wasqina waa 60 saacan waa 60 marka lagu dhuftay 5 waa 300 ay noqonaysaa muxuu ahaaye oo muxuu 300 oo suus ay noqonaysaa weeyaan 300 oo suus ay noqonaysaa marka xadiidka wuxuu tilmaamay 5 halaad muxuu ahaaye 5 awaaqood wax ka yar inaan sadaqa lagu lahayn way 40 5 lagu dhuftay meeqa waay waa 200 soo ma حسابها صاصي كوي ما نسى يعني 40 درهم هي زكادنا كواجبيسا سيدا الله بحيناينا waxaa waaye cushur la bixinaya rubul cushur waxa la yiraahdaa la bixiya 200 na waxa cushur ee 20 rubaceedana waa 5 qaabkaas lacagahan aan haysanana qaabkaas ayagana loo qiimeynaya ama 200 ba markaas 5 shilin ka bixisa ama 2 shilin iyo bar boqolkii ama ma ahee xoolaha markay macnaha ay zakada lacagta dahabka iyo muxuu ahaa lagu qiimeynay suuqa intii la tago markii lacagtaada ay gooyin karto 85 gram oo dahab ah taqriiban way taxdiid ma ahee ama way ka yar badnaan karto waa inay ka yaraan kartaa meelahaas markay gaarto ayaa xoolaha 40 loo qaybina markaas ma meel la bixina hadii xisaab ka sayna saasaad yeelin sida ayide yaa badiyeysaa ليس فيما دون 5 أو أواق صدقة دون ذا إضافة لازم تأساسا مركا وصلها هنا ولا فيما دون 5 ذود وحكاوس صدقة لغم لها أيقنا شن هلاد وحكيرنا صدقة لغم لها ولا فيما دون 5 أوسق شن هو هرترر أما أوسق و60 الساعة وحكير صدقة لغم لها بوي وحصدقوا لغوليه هي مدى إيدنا محوها هاي مجرد حديث مركا وحيالا أنك قادنا إنه وحاكمده وحلي يرادو zakada waajibnimadeeda marka wuxuu ahaa meesheedii ay gaarto oo dadka qariid in laga qaado fooqaradan lagu xiriyo ninkii xoolihi inta ay ka yaraadaana dii aabay gaarin wuxuu ahaa lagu malaha asaga lagu balaha 5 awsuq ama 5 dawd wax ka yar sadaqa lagu malaha laga mana rabo fidlada markay gaarto 200 dirham ففيها ربع العشر يا مركا إذا كبحيا ربع العشر أيا كبحيا وحق لعجها سيداس محوها هاي في الضلة لما بقول إيجاريس لعجتك الذهب كان مثقال بالي هذا 20 مثقالا نصف مثقال يا بحيا إيدنا ولبعتك مركا محوها هاي ولبع عشر يا كوجرتا ولا بشيلين ربع سنة وبولد مركا سينا قنيسة geeliga marka uu 5 gaaro ayaa shaata laga bixinaya 10 kiina 2 5 iyo 10 kiina 3 shiyayna ka baxayaan 20 kiina 4 shiyaha ayaa ka baxaysa geelka markuu gaaro 25 fiiha bintu makhad min al-ibil ayaa baxaysa ugu jiro habarteeda ay mucunahay canda keentahay ama fool ay gaartay ama meelaha ay ka ahaan jirto oo kale ay tahay ayaa baxaysa inta wixii ka sii badan qiyaas ayaa lagu sii soconaya hadana xubuuti ithmartina waan sheegnay hadane muxuu ahaa markii 5 muxuu wasiqay ay gaaraan 300 oo suuse marka inta gaarto waa 300 saa'in bisaa'in nabawi ayuu noqonayaa ayaa la bixinayaa waxaana loo bixinayaa qiimo waxa loo celinayaa xoolaha markii muxuu ahaa la abuuray qarashkii soo gaaray ma wax roob iyo si dib yar ku biximiyuu ahaa mise wax qarash badan iyo taabacaad fara badan uu gaaray buu ahaa hadii marka muxuu ahaa 10 kiintaal marka kiintaal laga bixinaya hadii dib la'aan iyo roob cirki ka waraabay xidid arooray oo biyo ku waraabay ay ku baxday hadii qarash galana oo matooro jireen oo hoola kala jireen oo qarashaad iska qaaday ay jirtana qarashka la gooyay nisoo maarta waxa waaye kiintaalki niskiisi iyo marka iiday muxuu ahaa ayaa la bixinaya saas ay marka iiday ay noqonaysaa arigana waa sidaas oo kale asagana 40kii ayaa naf ka baxaya muxuu ahaa idaha duuyays waa sanad jir
riyaha duuyayna markaas muxuu ahaay 2 sano meelahaas inuu jiro marka ilaa 121 intuu ka gaarana halkaas neefka ama soconaya markuu 121 gaaro ayaa 2 neef marka iyada bilaabanaysa haddana arigana waa noocaas loodana macna waxa waa iyadana 30 markay gaarto ayaa dibig jira la bixinaya 40 markay gaartona way laba jira la bixinaya 60 haday 50 markay gaarto waa waqsi 10 kaas waa iska dheeraad waqsi la dhaxay bal la bixinaya iska dheeraad 60 markay gaarto haddana waxa la bixinaya 2 dibiyood 70 markay gaartona 30 oo dibi ah iyo 40 oo wuxuu ahaay qaalin laba jir ah da'dana waa wax qiyaasan waxa iska wixiyayni ma aha sidaas oo kale xoolihii lacagihiina maxaa la yeelaya lacagaha waxaan uu fiirinayaa lacagta dahabka lagu fiirinayaa qiimihiisa intuu joogo markii intaas ay gooyin karto macna 85 garaamood iyo wax ku dhaw meelaha markay lacagteeda gaaraysa ka gaartay qaabka u qiimeynina waxay u tahay 40 ma loo qaybinayaa 40kii 39 ada iska leh qaybta 40aadna waa qaybta la bixinayay waxaan la aadayaa dadkii masaakiinta ahaa xoolaha iska lahaa saas ay marka iyadii loo qiimeeyaa waxay marka wadaadada in badan ka hadlaan muxuu ahaay zakaadka xubuubta iyo thimaarta maxaa zaka laga bixinayaa sida raajixa waxa waaye waxa la shooday ama la miisaamo oona la keedeysan karo kaasa wax laga bixiyaa imaam Maalik Shaafici Ahmed sidaas ay wada qabaan Abu Haniifa ku khilaafsan oo asagu wuxuu qabaa khudarawaadka aan keedka galaynin hataa in laga bixinaayo waana mas'ala marka iyada looga xoog badan yahay الحديث الثامن والستون بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق أبو هريرة وحلقه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحوير ليس على المسلم قفك مسلم كأدشيسة في عبده أدونكيسة دحديسة لغم لها صدقة ولا فرسه صدقته فرس كيسة يدونكيسة مدنة محوها هاي صدقة لغم لها أو صدقة واجبة مركا إذا لغا وضاوي لفظ كلنا وحايد إلا زكاة الفطر زكاة الفطر في الرقيق أضومها اللغولية فرس مرنا لغم لها هذا لكن صدقة زكاة الفطر ayaa waxa lagu lahaanayaa adoomada inay waajib tahay inay sunno tahayna waa mas'ala khilaafiidana sidaas oo kale marka xadiidka waxyaalahan ka faa'iideysanayno ayaa waxa kamid ah zakada inayna ku waajibaynin zakatul fitriga ilaa adoonka oo walina loogu talagalay khidmada lil khidma iyo faraska almuciddati lilrukuub kuma waajibayso kuwaas zakada kuma waajibto adoonka muxuu ahaay zakada caadiga waa oo xoolaha laga bixinayo kale adoonka khidmada loogu talagalay iyo faraska la raranayo oo rukuubka loogu talagalay zaka kama laazimayso laakiin haddii adoomadii ama faraskii uu yahay nooc ganacsi ah asaga markaas lacag ahaan loo xisaabaya waa laga bixinaya sidaas qaabka zakaatu tijaarada ay soo galayeen marka ayaga qiimaha la bixinaya marka zakaatul fitriga marka waa waajib adoon kasta ay waajib ku tahay ama lil khidma ha ahaado am lil tijaara ha ahaado mutacalliqatun bi'aynihi walina la biqiimati ka amwaalil urud kullu ma aha sidaas oo kale waxa loo diyaariyay in la isticmaalo asaga oonan koreyno badanaynin zaka lagu malaha zaka asaga lagu malaha waa marka arimadaas aad iyo marka muxuu ahaaye iyay u badan yihiin الحديث 69 بعد 100 حديثك لحدا يا سقالات بقولك قداشيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار
والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة البهيم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وحال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يرادي العجماء جبار. عجمد وجبار عجمد مركا وحالا ولا حولها مهدلياشي حولها وقيلي أرقي لوضي تاسع عجمال يرادا. جبارنا وحالا ولا مركا إيده وحي دباتو أي جيستان لا ضمان فيه وحلا لقودايو أما لما مقدو ماله ساسا لغا ودا ساس أيا لغا ودا haddii muxuu ahaay sabab uusan u noqonin qofkii lahaay qofka la haduu sabab u noqtana baabkaas marka iyadu ay ka baxaysaa. walbiiru ceelkiina jubaarun asagana waa hudur weey oo ceelasha la waraabo kaarkaar kale la dhaansado dalowga lagu ridanayo hadduu qof intuu kor fadhiisto biyo ka cabay ama ka dhaansana ku dhaxdhaco ku dhinto ninkii qodaa loo qabsana ma jirto sheekadaas asaa ku dhacay. haddii asaga uusan dhihin gal wax lagu dhimanayo ma aha iyo ninaan garanayn dumarada waa la galaa anaga inta gal gudaha kasoo dhaansanaa iyo hoola ninka taasoo kale marka qofka asa ku lugooy qadaacadaas noocaas ama lagu daba tuurin hoola hadday saas ahayn oo asagun iskaga dhacay ceelka hebelaa meeshan ceel ka qoday markaa ka sameeyey karkaara u sameeyey dadkiiba nin baa ku dhintay asaa loo has sheekadaa sheeko soconi ma aha. walmacdinu macdinkana muxuu ahaay markaa jubaarun asagana waa huduro macdankana waxaa loo wadaa waa jawharta dhulka lagala soo baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka uu ku abuuray. wa fi rikaazi alkhumus rikaazka marka waxaa waaye waa dufuunu ljaahiliyow jaahiligii xoolihii dhulka ay ku xabaaleen oo adiga ilaahay ku tusay aada heshay iyadana 5 meelood igi loo bixiyaad meel zaka loo bixinayaa 4 kalena adigaa muxuu ahaa iska qaadanaysaa. jubaarkana alhadru weeyaan الذي لا شيء فيه وحبك من لازم حبك من إيمانه وهذول وحبه مجرو وحجرو ملو والعجماء الدابة البهيمة الله وضع وحولها نمعولي يدئوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار عجمد بهيمتم حجر وجبار وهذر والبير جبار علكنا وهذر بويرادي والمعدن جبار معدنتي iyo jawhartii dhulka laga helayna waa hudur buu yiri wa fi rikaaz gana alqumus ya laga bixinaya buu yiri aljubaru alhudur weeyaan alladhi la shay'a fihi wal ajmaa'una adabatu bihim weeyaan saas Allah wada. xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa bihimadu waxay geysato inaanan muxuu ahaay la damaanaynin oo la gudaynin saaxiibkeeda hadduu si xun ugu tasarrufin ama dadka asaga uusan ku soo dirin marka oo marka ficilka ay sameynayso ficil ninkii lahaa uu sabab u yahay xun inuusan ahayn. waxaa kale oo iyadana waxay dhammayso ama ceelka wax ku dhinto iyo wixii la milka waxa asagana inuu hadur yahay isagana waa laga qaadanaya. muxuu waxyaalaha khumuska laga bixinaya rakaazka asagana khumus ayaa laga bixinaya meel zakadga la geen jiray ama dadkii la siin jiray ayaa markaa iyadana muxuu ahaa ayaa la siinaya shuruudaan ay leedahay waa inay calaamad dad kale ay laheen dad kale meesha deganay oo loo tuhmay inay jirin calaamada ku tusinayeen inay dad jaahili hore oo waqti hore ahay oo gaara ahay inay leeyihiin muxuu ahaa waa inay ku tusmo wax dad leeyahay meel ku xabaashantaada aragto ha tuugeyn marka ida dhihin ana muxuu ahaa rakaazan dhulka helayo wax dad leeyahay taa marka la mar dheelkan lagu qaato la mar waxaa kaloo xadiidka markaa uu tilmaamay wala haddu la sheegin laakiin quraanka uu sheegay masrifu zakaa ama masrifu fay xoolaha zakada muxuu ahaay zakada intee lagu bixinaya intee lagu leexinaya haddii markaa hadda ay jirin meel markaa la siiyo la waayo masaalixda guud ayaa lagu bixinaya masaalixda guud ayaa lagu bixinaya marka taas iyadana markaa waa jirtaa waa sidii macnaha waxaa way fayigii iyo taasay markaa la mid tahay hadda marka meelaha masaalixda guud in lagu bixiyay noqonaysa. الحديث 70 بعد 100
حديثك تضواتنات بقولك قداشيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على صدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن وليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا لغوريي حير هذه النبي عليه الصلاة والسلام يا وحود عمر بن الخطاب على الصدقة إنه صدقة سؤروريه فقيل النبي والله كان ورا وحال وير أما عمر كباب إمادي أما ضدو صادر أو إمادي أو مركا كورا معايا صدقة سيدي قابكي لو سبحيي وحير منع ابن جميل نينكا ابن جميل يرادو كنيدا عنكو يهي حولي وريبتي مقعيسة مركا ابن جميل كا وإسكوها يعني قارك وحيرة وحال أورين جري حسين إيه الأورين جري قارك وحيرة ما حسين ما هي عبد الله باللي يجري لماذا هذا البا ولا شيء هذا ابن جميل إن لا ده يده يحديث كمركا الناس كيسا كتو صناعي نينكا ابن جميل إن عربي بوها نينكا سجى حوله بو ريبت بالير صابتنا النبي وعدين دونا وخالد ابن وليد نو ريبتي خالد ابن وليد سيف الله مسؤول نك الأورنجري نينكا أسجنا وحواي واريبت بالوير والعباس عباس بن عبد المطلب وي أو النبي عليه الصلاة والسلام أدير كيس أسجنا وو ريبت وي عم النبي صلى الله عليه وسلم سدح نبالير سدح دان نبواي ريبتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير ما ينقم ابن جميل وما انكرايو أو ما ريبناي وما ديدايو إلا أن كان فقير بوها نين حوالا لهين بوها نين عندي سلطة الله وإيه فأغناه الله تعالى إلهي بعد دقيقة إلهي هدو دقيقنا نعمة إلهي وكفرنا ياو بدلوا نعمة الله كفرا وي ساسو بدلها يا ابوي سواح كلا هدا اون او عذر دارينو مله وحون اهينين فقيره الهي ووحسيي شكرنتي وون كسلا يحيى واجب كل ولاي markaas uu reebanaya ninka asaga dhinaca kala looga baxay waa ninkii ahaa ibnu jamiil cudur daar looma sheegin wa ama khalid ninka khalid la yiraahdo miya fa innakum idinku tadlimuna khalidan خالد وظلمنا إسطنبول النبي عليه الصلاة والسلام خالد سيسو شيكتين معها حكتي سمها سيري أو محا فقد احتبس وحود دياري أضراعه عبر بريد كيسي دقالك اللي قلي واعتاده خبكي يصيففكي وحي أذله هرسي بحييبه في سبيل الله يقود بحيي حولي سأذله موقوف وماشى أوقات إقبا وحلقوا قبصنا يا الله داي وحبو ريبتبا وحتى الزكاة اللازمين ننكي بحيي ميا الزكاة ريبوي ما يوي نكا أدنك وأقول ما يسام بالي وأما العباس فهي علي ومثلها عباس وحيري دشي دباي أهاتي تاسي ولينا طول مده يا أنا دشي دا أهاتي هذا الكاس مركا قارو حير الدين وحلقة ولا سنة كاس يسنة كي كدم بيوا صدقة دي يزكدو دي وسي هرمريي سيدا أودي مركا زكاة إيجا وقت جاء ذا لجارين باهي هداي ماتو إن لسي هرمرين كرو يا لقى قادنا يرادين قارو يرمى يسامع هي وحلقة ولا أنا جا كبحين عياو أنا جا كبحين ربا أو مركا زكاة دي حق المال هاد حوالي أنت لقوا رجينو شخص يقصق بحينها عياو ومالك لك بحينها عياو يا ميدا أيضا لقى قادنا عياو مسلك الإنشاء خلاف منشأ الخلاف وقبل لابنا يمشي أيده كذا شوي بيدنا ثم قال وعير يا عمر أما شعرت ميادا أوجين أن عمر رجل ننكا أذير كيسة سنو أبيه سميد لميد إلويه ميادا أوجين وننكا عصقة أبيه إدلو لميد هيبة وحي مركا لقواي أنا يدو شيء ده طابحين عياو ساسو مركا إيدا النبي عليه الصلاة والسلام يوكا وضع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحودر عمر على صدقة
faqiila waxaa la yidhi manaca wuu reebtay ibnu jamiil wakhaalidun khaalid ibnu waliidna wuu reebtay walcabaas cabaas camu nabiyi sala allahu calayh wasalamna wuu reebtay faqaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maa yanqimu uma inkiraayo uma diidaayo uma reebanayo ibnu jamiil ilaa an kaana faqiiran faqiir waafaqnaahu llahu tacaala ilaahay baa deeqa markaa nicmada alloo ku kufrinhaya wa amaa khaalidun khaalidna fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan waa dulminaysaan faqad ictabasa wuxuu diyaariyey oo u xabisay adraacahu caburbureedkiisa waactaaduu qalabkiisa fii sabiili illah wa ama alcabaasu cabaas miya fa hiya calaya wa miluhaa midiisii mid kaloo lamidaba inay dushayda ahaatay buu yidhaahday uma qaala wuxuu yihi yaa cumar cumarow amaa shacarta miyaadan ogeyn ana cama rajulu ninka adeerkiisa sinuu abii aabiis inuu la mid yahay miyaadan ogeyn buu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaa waxaa laga qaadanaya ninka imaamkaa inuu dad u diri karo oo shaqadaas zaka aruurinta iyo bixinteedii iyo holahaas nin inay shaqo qaabka asag meesha loo xilsaari karo oo shaqo looga dhigi karo iyo shacbiyadeedii qayb kamida la kari waayo amar diida iyo xoolihii ay bixinaynin iyo aflagaada iyo hoola kale hadday la imaadaan ama cibaadada ay kuxun yihiinna in la soo sheegayo oo ninka amiirka markaa wax ka qaban karo in loo sheego jaajuusnimona ma aho waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya nin ilahay duu nicmo u siiyo nimcadii uu ku kufriyo in wax laga sheegi karo horaha wuxuu saasaa ku dhacday oo sidan waaye in la gaarayo marka la taabanayo maxaa asa ileen hawshii ka gaabiyey waxaa kaloo laga qaadanaya iyadana in wax la waqfin karo asoon waajib ahayn si waqfin karoba sunno iska ah in la isticmaalo aawadeed oo sida uu sameeyo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ictidaar oo cabaas nabi alayh salaam uu u cudur daari laba ixtimaala ku jirtaa bay yidhahdeen jawaazu tacjiilu zakaat waa laga qaadanayaa oo zakada in la sii horumarin karo zakawaadka in la horumarin karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya jawaazu taxamuli zakaat caman wajabat caleyh cid ay ku waajibtay in laga wareejin karo cid kale ay bixin kartona iyadana waa laga qaadanaya laakiin qofka inuu cudurdaar la-aan reebto markaana la daayo wax dhici karo taa iyada ma aha adeerka la weyneynaayo iyo xaqiis inuu weyn yahay xaqi aabba oo kale inuu yahay iyadana muxuu ahay xadiidka waa laga qaadanaya iyadana الحديث الحادي والسبعون بعد المئة حديث كي تضباطا يكوبات بقولك قداشيس عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعد الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا بكذا جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وأرضاه قال وحير لما أفاء الله على النبي يوم حنين حنين دقال كذي مركو دعي إلهي سبحانه وتعالى وأسوع علي نبي جيسى حوله وأسوع علي حنين تمركا ووادي كيالي مكة يا طائف محوها dhexdooda oo markaas qola waxaa deganaayeen la oranay Hawaazin oo garab aan siinayeen qola Thaqiif la dhaho sanadkii 8aad hijrada islaamka bishii Shawaal dagaal meesha ka dhacay way xunaynta lagu sheegayo afaana waxa way xoolaha oo markii dagaal la galo wali dagaalku u qaadan nabigiisa ilaahay u soo celiyo biduuni dagaal la'aan afahina waxna waxa waaye waa wax asal hore ayag ay lahaayeen oo xaq darro ooga maqnaayo xaq ilaahay u soo celiyo
فقسم النبي قسم وقيبي في الناس دتك حول إليه سوعليي مركا إذا أما هذه غنيمة نقطين هذه كلمة وقيبي وفي المؤلفة قلوبهم كوي إسلام ماذا قلب قاد الوسو دم يوقيبي مركو سيدا أسيناي والحال لم يعد موسى سين الأنصار شيئا ري أنصارات أو ماشي كوبدناينا موسى سين النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم وجدوا في أنفسهم ويا عراضين ويا عربا كبعضي حلوس لولسين وين إذا لم يصيبهم مركا أين هلين أوصن أصيبين ما أصاب الناس تطبحي هلين مركي حقا لغا شيغ ري أنصارات نبي اسكو ييري فخطبهم وخطب أخريي فقال وحير يا معشر الأنصار أنصار كلن كيدو ألم أجدكم ميان إذين هلين ضلالا إذن كوبادئة فهداكم الله إليه ثم إذن كهنونين بي بسبب أنك سبب تيدا وكنتم صمادا نهين متفرقين كوا كلا تكسر الله وقال أوصي خزرج أكل جبسناين دقال حن أو بعاثي الله هاي سبنا لسكو قادا أو لسكو جريد بالي أيا دحدودان بين مريض كويالكاس marka sanad kastaaba marka deegal jooga dhici jiray 100 sano wax ka badana dhaxdooda dagaal yaali وكنتم صمادا هين متفرقين كوا كلا تكسر فألفكم الله بي إلهي سبحانه وتعالى صوم السبب تيدان نسكوكي صدومين كلما قال شيئا مر لا أركو النبي عليه الصلاة والسلام وحقو شيئا قالوا وحي أرنين الله ورسوله أمن إلهي رسول كيسا قلد لوي قال وحير ما يمنعكم حائدين ديدا أن تجيبوا إن الأجيبتان رسول الله رسولك إلهي هذا الكيس مخشان والأجيبتان حائدين ديدا قالوا حين الله ورسوله أمن إلهي رسول قلد لوي قال وحير لو شئتم أداد دونتان لقلتم حابطي لهذين جئتنا وعد نوري ماتي بكذا وكذا سيدا أذيقوا قحوتي والوسوئر يالله ما تعطي لهذين لكن ماذا نهنوا وطيعناتين ألا ترضون مياذا كرها لنقنين أن يذهب الناس ذاتك إنا إلا تغان بشات والبعير لأي أريق إيو جيلك إنا ذاتك إلا تغان حوله عيد وكحيسان حوله عيد وكحيسان وتذهبون إذن كان قيب أهانا أدوه هشان بالنبي النبي إلهي إلى رحالكم قريهن أهلا أدان مجعشيهن مياذا جعلهم مكرها لنقنين سينا صدا مياه أو إذن كحي قيب بعد سهيل إيسان بقول نقطة النبي عليه الصلاة والسلام انت مركو النبي عليه الصلاه والسلام ده امانته تصيب بالله لولا الهجره هجره هدين جرين او سو هجرود مهاجر انا اهين لكنت وحان اهان لا امراه قف من الانصار في انصاريده ولو سلك الناس dadka haday qaadi lahaayeen waadiyan tog haday qaadaan oo shicban laag iyo meel duur iyo shacbada marka waa meelaha ciriiriga wadada buuraha dhaxdooda labada buur dhaxdooda ka baxdo duurka ee la salagto waxaan qaadi lahaa waadiy al-ansaari ree ansaare togooda iyo shicbaha duurkeedii ciriirigeeda al-ansaaru ansaar shicaar weeyaan shicaarku waxa la yiraahdaa marada kore marada kaaga hooseyso jirka la xiriirto waa difaac hoose weey waa difaac marka shicaar waa funaanadu والناس dadkina disaaran waa shaatiga kore weey innakum idinku wuxuu talqawna waxaad la kulmi doontaan بعدي قدا شيء ده أثرت لكلين نقشة واحدة اسكوا دليها أو عتي جوري وقارن دونته أنا اللي جهدي كلين أدوين أكيد دونتان مركز دركتان حسمين إنسان فاصبروا صبرا حتى تلقوني إلى دجلا كلامتان على الحوض دركة ودي كوثر كها مشت إلى دجوا إماتان إسك صبر بوكير النبي عليه الصلاة والسلام وهم جوري تطلق بسنين وقلت على منه إسك دايب بوكير عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد وحلوير بن عاصم المازني رضي الله عنه قال وحير لما أفاء الله إليه ملك أسوعي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسموا قيبي في الناس ذاتك دحضاضا وفي المؤلفة قلوبهم كبي قرطوضا لسود ما يقيبي ولم يعدم موسى سين الأنصار أنصار شيئا وحبا موسى سين فكأنهم وابا يغو وجدوا عراضين في أنفسهم نفتوضا إذا قرتي لم يصيبهم أوصر أصيب ما أصاب الناس ذاتك حلالي وحي ددك اي هلالين markayna ayag haleelin oo xoolahi ayna helin yaa xooga cara ee laga sheegay hadal faqadabahu nabiga u khudba akhriyay faqala wuxuu yiri ya ma'shar al-ansar ansar kulankeedo alama jidku miyana idin helin dullalan idin koobaade fahadakum allah bi ilaa isma sabdi idin ku hanuunin wa kuntum soomadan mutafarriqina kuwa kala tagtagsan fa'alafakum allah bi ilaa isma isku kiiso dumin
كلما قال شيء مركو وحده قالوا وحي أرنا الله ورسوله آمن قال حير ما يمنعكم حيدين ديدايا أن تجيبوا رسول الله رسولك إلى إن أجيبتان قالوا حير هدين الله ورسوله آمن إلى رسولك ساق الله دل قال حير لو شئت مداد دونتان لقلتم حاضي إلى هذا جئتنا وأن ولدت ماد بكذا وكذا ألا ترضون ميادا كرالي نقنين أن يذهب الناس ضدك إن إلى التقام بالشاط والبعير أرق يجيلك وتذهبون أن تقتان إنك بالنبي إلى رحالكم قريهن آدان لولا الهجرة هجرة داين جرين لكنتم وحانهان لها إمران قفوا من الأنصار ريان صار ولو سلك الناس ضدك دي قاد لها ين واديا توق أو شعبا لا لسلكتم وحان قادها وادي الأنصار وشعبها دور كيدويا الأنصار وأنصارتو شعار فنان دويا والناس ضدك ندثار كرصاروي إنكم إذن ستلقون وهذا كل بدون بعد أثرة لكل نخشى فاصبروا صبر بويراد حتى تلقون إلى ذلك لكلنتان على الحوض حولك إلى ذي إماتان صلى عليه السلام حديث كما كان على قادنا يمحويه وحال قادنا يا ضدك إنك أميرك هذا الله ضيك صوبحان وحياله وررك سويرو انت لو يرو مالير ان لبوش بخيو waxa meesha jiro in la cadeeyo hoosh asaas waay warka inay dah laga qaado oo inaan macna la isku dhuumanin laba inay banaan tahay qof diintiisa lagu kalsoon yahay dadnimadiisii wax dadka oo u dhaxeeyay in asaga la siinin asoo marka loo tala saaranayo dadnimadiisaas iyo dayaanadiisii waxa kale oo meesha iyadana ku jira qofka inuu adduun jeclaado iimaannimadiisii islaamnimadiisii asalkii fiicnaa uu dagaalamay ma burinayso iidana wax burini ma aha yani qofka inuu adduunyo rabo wixii soo idilba inuu aakhira waxba ka jirin macna ma aha yani adduunyadii aakhira wala isku dhex wadi karaa waa isdhexgelayo waxaa kaloo hadii laga qaadanaya wax la yidhaahdo mawcidada iyo khudbada wanaagsan meelaha munaasabka dadka waxyaalaha marka u baahan yihiin in laga hadlo qaa'idka iyo amiirka iyo dadka wilaayaadka meelaha xukumayo shu'untooda caamka ah raciyada inay kala tashadaan oo kali talis inay noqonin waxaa kaloo laga qaadanaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmad iyo baraka inuu ummadda u ahaa qaasad reer ansaar ay u sii jeclay u fiirso ansaar fadhiga ay lahayn hadda meesha waa laga qaadanaya iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam suu u jeclaa calaamaat nubuwa iyaana ku sugan oo nabiga wuxuu sheegay reer ansaareed inay yaraan doonaan dadkana ay badan doonaan la keli noqosho waxaad ummadooda la leeyahay cid gooni u qaadanayna uu sheegay xaqiiqana waa u dhacdo sabarka wanaagsan oo masaa'ibta lagu sabro asbaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam darkiisa looga waraabay inay ka mid tahay haddaad sabarto nabiga calayhi salaatu wasalaam darkiisa ayaad ka waraabaysaa baabu sadaqati alfitri zakaatulfitriga waxaa la yidhaahdo takarasoon aan u naqaano taas ayuu markaa ayuu u baab yahay culimmadana waxay ku ijmaaceen inay waajib tahay ilaahayna wuu jideeyo xikam fara badan iyo fawaa'id fara badan ayaa ku jirta kow saddex haddaan ka sheegno duhuratun lisaa'im qofka sooman zakaatulfitriga uu dahiraya wa shukrun lilaahi tacaala ilaahay oo loogu shukrinaayo bitakmiili siyaami shahri ramadaan waxaa kaloo ku jirtaa muwaasaat bayna alfuqaraa waalaghniyaa xiriir dhexdooda iyo is-araga isbarasho iyo waxsiin isjeceel meesha iyadana waa ka imaanaya faa'iidadaasoo idil ayaa markaa iyada muxuu ahaaye ku wada jirtaa alxadiidu الثاني والسبعون بعد المئة xadiidka 72 boqolka gadaashiisa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاه وحليه فرض النبي صلى الله عليه وسلم نبي فرض ياله صدقة الفطر زكاة الفطر أو قال وحير رمضان صدقة رمضان على الذكر قفكا لبكة والأنثى ديدقة والحر قفكا حركة والمملوك الضونك صاعا من تمر ساع تمير على بحينا يا قفكي أو صاعا من شعير أما ساع قمدي على بحينا يا قال وحير فعدل الناس ضدك ووحيل السمين نصف صاع من بر بركة نسكيسة
nusaac bur ah ayay suuskii la sameyn way saac cidan ay la sameyn nusaac oo burka waa inoo imaan doontaa waa bahasha samarada la yiraahdo way galeecadayda way cala sagiiri walkabiiri oo laga bixinaayo qofka yar iyo qofka weyn inta fii lafdin an tuaddaa in la guta qabla khuruuji الnaas ila الصalaaة dadka intayna weli salaada ciidda ayna u bixin inayna la bixiyo xadiidka markaas wuxuu tilmaamay kow inay faral tahay waa laba cid ay ku waajibayso dakar unhaa xor mamluuk qadarka la bixinaayo saac min tamr aw saac min shaciir noocyada la bixinaayo haddana iyo qayb ijtihaadi kale kusii dhex jirto oo ah qaarkooda inay u arkeen burka inuu aada u qiimo badan yahay oo nisfu saac asaga laga bixin karo uu dhigmaayo shaciirta iyo tamarta inuu dhigmaayo saasuu marka iyada tilmaamaya xadiiska alxadiidu الثالث والسبعون xadiidkii 73 بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان قال وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحليه كنا وحانا نعطيها كي بحيو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى وقت جيسة ساعا من طعام سوس أو طعام سوس طعام يا بحنجري marka dhacaamka marka cuntada oo idin la wala dhaha laakiin khaasatan reeshaan markay dhacaam dhahaan waxaa loo wadaa waa bahashan la yiraahdo burka bay dhacaam u yaqaaneen marka saasaan had loola jeedaayo muxuu ahaay gadaal damay ka caddahay aw saacan min tamr suus timir ah aw saacan min shaciir ku qamadi ah aw saacan min aqt waa caana la adkeeyo la biyo miiro wey أو ساعا من زبيب بعد الزبيب تلي رضو سوسي فلما جاء معاوية مركو إمادة أو شامتو كإمادة سو حجي مقالة المدينة أو إمادة وقت قال شيء قايو أو جاءت السمراء مسقعدة يدير أي إماتة قال وحير أرى وحانوار كان مدا من هذا كان مد كيسة يعدل مدين إنا يدين معنى وحاوة ساعي سنة نصف ساعي بقولك ماوي فقه غراء وخلوي قال أبو سعيد أسأل وحير أنا شاكرا إيمتها الله أما أنا مياه فلا أزال كمزولاي أخرجه إنا أبحينا كما كنت صدعا أخرجه كأبحيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم حبيد أختي سيسيو بحنجري أما نبحينا شاكلا عندما أعطوا معاوية شيئا إذن كنت رحسن تهين لو الله قدال اسكب الدلين أنا كم مجربوا ير سنة النبي كان كل جاية سوسكي اللي بحينا يمال لتاقين هاي دي كم عني سنتاسو مركا وعنك قادنا إنا زكاة الفطر واجب لماذا وإجماع المسلمين إنا يفرض تاي mideeda labaad waxa kale oo qof kasta oo muslim ma sagiir ama kabiir dakari unha xor iyo abd doon inta in laga bixinayo idina qofka janiinka ah laga bixinayo caloosha ku jiro kuma waajibayso culimada aktarkeedana waxay yiraahdeen qofka janiinka caloosha ku jiro in laga bixiyo way fiican tahay waxba dhib ma laha qofka xamliga caloosha lagu hayo hadii zakaatul fitr laga bixiyo way fiican tahay Uthman ibn Affan waqtigiisu ka bixin jiray xadiidka daahirkiisana wuxuu tusinayaa waxyaalaha la bixinaayo waxyaalaha muuqtaan oo hadda tilmaamay waxaan wixii lamid oo markaa quutul balad la dhaw quutul balad magaalada waxa laga cunaya la bixina magaalada waxa laga cunaya oo cunto rasmi u ah kaas la bixinayo dadku cun karaan way mooyaan hadda waqti galay waqti qamadiyada la kor joogsato hooda tiraade waxay kula yaabayeen dadka qamadi goorma karsanayeen waqtiga hore waa la cunto qumanay ahayd oo muxuu ahaa laakiin hadda waa lagu la yaabay moogteeni sidaas oo kale wala markii la bixinayo waxa fiican cuntada iska garo yaabis dad inaan loo geynina qudaarteedana in loo raaciyo ama waxay qudaartu gadan lahaayeen intaas oo bariisa u geysay muxuu ahay maanta wuxuu ku karsanayeen oo ma hayo muska sida muu ku cuni masawal saa ma lagu cuna saa lagu cunayo oo wixii loo raaciyo isna waxa meesha ku jira fiqigaas meesha ku jira la ogaado
xadiidka daahirkiisa marka waxa waajibka inuu saac yahay ayuu tilmaamay noocii ahaatoba sidaas ayaanay ku tageen imaam maalik shaafici axmed jumhuurtooda saasay qabaan abu xaniifa asaga wuxuu qabaa xindada nisfu saac in la bixinaayo fiqiga mucaawiya halkaas keligiis mee rag badan asagana ku raacsan oo sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala qowl imaam axmed laga soo wariyey waxyaalahaasa marka ayagana jiraan oo kale waktiga la bixinaayo salaada muxuu ahaay fajarka maalinta ciidda fajarka markuu dhasho ilaa ciidda intaan la tukanin waktiga ugu fadli badan waa waktiga iida wey waana qowl fuqahaa madaahib alarbac sida ugu fadli badan sidaa wey xanaabiladu waxay qabaan ayagu bacda alciid haddii la bixiyo inay karaaha tahay yukrah yowm alciidi ka dambe in lasii bixiyo waana qaarkood waa sadaqa min sadaqaat ay yihaahdaan laa ayago cayli waaba karaahaba in la bixiyoba waktiga kasii dambe sidaas oo kale rag badan asna qabaa oo jamaahiir alfuqahaa ibnu xasm uu kamid yahay taxriim taakhiiru can الsalaa waaba xaaraan buu yihi gadaal in laga sii mariyo waa xaaraan wey fuqahada marka xanaabilada meesha isku dhow yihin aad iyo aad waxay yidhaha faman adaaha qabla salaa fahiya zakaat maqbuula waman adaaha bacda salaa fahiya sadaqat min asadaqaat waxay isweydiiyaanaa in laga hormariyo qabla leylat lciid ma banaan tahay mise ma banaano abu xaniifa wuxuu ku tagay inay bannaan tahay sanad in lasii hormariyaba sanadaa la hormari kara ma 2 sano buu yihi zakaadkii muxuu ahaaye xabaas hadda aan soo marayni xaggaas uu ka qaadanaya alimaam ashaafici asaga wuxuu qabaa bisha ramadaan habeenka ugu hore in la wada bixin karo la hormarin karo imaam maaligna wuxuu qabaa inaan la hormarin karin salaadeedii waqtiga igi la gaaro ma la bixin karaa xanaabiladuna waxay qabaan ciidda 2 beri 3 beri ka hore in la bixin karo yoom oo yoomayni in la hormarin karo marka xogaa fiqigaas faraha badan ayaa meesha iyada muxuu ahaaye ku jiraa kelimadan intaas ay noogu eg tahay ilaahay ha nagu anfaco hala naga aqbalo وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت